marka aad baan ugu mahadnaqaynaa sida ay wanaagsan u maamuleen u agaasimeen u soo dhaweeyeen dadweynuhuna sida uu ugu yimid dawladaha badankoodu si ay ugu yimaadeen sida ay pledge-ka u sameeyeen inay magaranaysaa wax la qabanayaan Soomaalida taasina yani waxay noo tahay rajo weyn ayay noo tahay madaxweyne maanta ma la filayaa shirka soo gabagabowday maanta gabagabowd doona insha Allah waxaad ka mid tahay madaxda geysay ciidamada Muqdisho bal ka waran maxay qabteen ciidamadii Djibouti intii ay joogeen magaalada Muqdisho wali badhan ciidanku waxa isku haysanaa meesha la geenayo iyo meesha loo sii diyaarshay technical arrangements madana madaxweyne suurtagal ma tahay halka ciidamada AMISOM laga geenayo magaalada Muqdisho in la sameeyo in ciidamada laga qoro Soomaalida gudaheeda sidaas hadalkaygu waa maanta hadalkaygu sidaas waxaan xasuusiyay 1990 markii la keenay 30,000 oo UN peacekeepers oo la keenay oo dharaar ay intay laabteen ay dhaqaaqeen ay ka tageen yani fawdada inta leega ilaa maanta socota waxaasi si ayna u dhicin waxaan niri in magaranaysaa ay la abuuro la qarabeeyo la hagaajiyo wax la baro ciidan Soomaaliyeed oo AMISOM kolka uu wadanka ka dhaqaaqay ilaa waligii joogi maayo dawladda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed difaaceeda iyo ilaalinteeda